koonfur afrika haddaan eegnana waxaa ku nool ganacsato badan oo Soomaali ah oo dabcan qaarkood la sheegayo inay halkaasi kula nool yihiin qoysaskooda waxaa la sheegayaa in saameyn ay ku yeelatay isbeddelka xagga maciishada nolosha waddankaasi xassankaafi maxamed shire ayaa warbixintan inoo haya iyadoo guud ahaan maciishada suuqyada dalkani koonfur afrika laga dareemayo kor u kac xooggan kadib markii lacagta waddankani oo hoos u dhac xooggan ku yimid ayaa TV-ga Universal waxa uu kordhalay qiimo kororka ku yimid qudaarta qaybaheeda kala duwan taa oo ay noloshooda ku maareeyaan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee uusan jeebkooda burnayn ugu horeyn waxa uu TV-gu booqday suuqa qudaarta ee magaalada Cape Town ee dalka koonfur afrika oo aan kula kulmay ganacsato Soomaaliyeed iyo waliba dad u dhashay dalkani koonfur afrika oo ka ganacsada qudaarta qaybaheeda kala duwan شدي آد أي لو قعدي سبيشال قدرته مركان تصارى كوسا تماسك وحنا كذا جرنا بقول يسوع ما أنت عمره بقول يسبيتن كراتو الحين كذا جرنا شيء لا ما أنت عمره ساقون يعني دمين يسبقوا كبار 50% أي قدرته نغطي يعني وحنا نغطي بس نسميه البقرة دوان waxa uu ka mid yahay muslimiinta u dhalatay dalkani koonfur afrika ee ku ganacsata suuqani waxa uuna wax yar uga hadlaa afka Soomaaliga Qudaarta lehlan yeshan basal lehlan ra parado basal yanyo mos everything is very high. South Africa is now right now big drought, so all the stuff is getting very high, almost 50% more than last year. First time in history we pay so much for stuff. Is there any hope that you think it could be a raqiis? I don't think so. markii hore waxay ahayd in qudaarta qofka shaqaysanaya uu faa'iido helo shaqaaluhu wax ka helaan nolosha si fiican ay kaaga kabto laakiin maanta waxa lagu jiraa shaqadii hore aad u soo baratay ka tagin oo customer-kaagii ina ka kala tagin ma ahan wax faa'iido oo haba yaraatee lagu qabo ma jirto xassankaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town